taliska ciidanka booliiska galmudug ayaa baahiyay magacyada 36 qof oo galmudug u aqoonsatay inay yihiin dambiilayaal kuwaasi oo la faray laamaha amniga ee galmudug iyo maamulada kaleba in ay gacan ka geystaan soo qabashadooda ragga la baadigoobaya ee baxsadka ayaa waxa ugu horeeya sida qoraalka lagu sheegay hogaamiyaha kooxda Ahlus Sunna Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo 35 kamid ah saraakiisha hogaaminaysa kooxdaasi afayeen u hadlay ciidanka booliiska galmudug Nuur Cilmi ayaa yiri waxaan soo gunaanadnay wajigii koowaad ee howlgalkeennii waxaan bilownay wajiga labaad oo aan ku soo qaban doono dambiilayaasha oo aan rabno in dawladaha dariska ah iyo laamaha amniga gudaha ay ka howlgalaan in cadaaladda la horkeeno maamulka galmudug ayaa tan iyo markii la dhisay waxaa caqabad iyo dagaal uu kala kulmayay xoogaga Ahlus Sunna wal Jameeca taas oo u sii dheer tahay in ururka Al-Shabaab oo deegaanada qaar gacanta ku haya marar badan weeraro ka fuliyaan deegaano ka tirsan galmudug Fortuna Musane Rais TV Muqdisho Hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo ku sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobilka وقار كميدا فايدooyinka adeega internetka Hormuud ee ADSL Plus guriga xafiiska ama xarunta shirkadaada isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida